xubnaha wakiilada beesha caalamka u jooga dalka ayaa kulan looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya iyo xiisada ka taagan waxay ku leeyihiin xarunta xalano oo fadhi u ah hay'adaha shisheeye ee dalka ku sugan. Kulankaani oo ah mid degdeg ah ayaa la sheegay inay u aanaysanayaan xubnahan rabshadihii shalay ka dhacay Muqdisho, kuwaasi oo qasaaro dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ilaalo u ahaa midowga musharaxiinta oo Muqdisho shalay qeyb ka mid ah ka dhigay dibadbax ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada dawladda oo lagu soo jidadka Muqdisho diidanaana in banaanbaxaasi uu dhaco. Kulankaani oo ah mid albaabada u xiran ayaa la filayaa in marka uu soo idlaado wixii ka soo baxay ay bayaan ka soo saari doonaan. xaaladda dalka ayaa gelaysa jawi cakirnaan ah kadib markii madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay xal waara ka gaari waayeen muranka doorashada hareeyay. Dhinaca kale Antonio Guterres, xogayaha guud ee qaramada midoobay, ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadda ku muransan inay isxakameeyaan oo ay isdejiyaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ku boorinayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka inay si degdeg ah iskugu yimaadaan oo ay dhameystiraan heshiis siyaasadeed oo ku saabsan wadada loo marayo doorashooyinka qaranka iyadoo la waafajinayo qaabka doorashada ee 17 September, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay.